Xaaskaygu waxay ka niyad jabsatay fikradda Saddex-geesoodka threesome, aniguna aad ayaan uga xumaaday. Xaaskaygu waa qof aan mar walba ka riyoon jiray, waxayna leedahay lab-lamaanimo, bisexual, si furan oo sharaf leh. Markii aan xiriir bilaawnay, waxay igu qososhay oo sheegtay inaanan xanaaqin marka ay saaxiibadeed la safarto. Saddex-geesoodka aniga iyo haweeney lab-lamaan ah ayaa mar walba ahayd riyadayda. Xitaa waxay ii ogolaatay inaan internetka ka raadiyo unitorn haweeney gaar ah oo saddex-geesoodka ku habboon. Laakiin markii aan kulan qabanayay, waxay u muuqatay inaanay rabin, marka waan joojiyey raadinta. Fasahii dhowaa, markii ay gabadh bikini xiran aragtay, waxaan mar kale ka hadlay saddex-geesoodka, laakiin waxay tiri waxay ka baxday marxaladaas nolosheeda oo hadda waxay rabtaa inay aniga ila joogto oo keliya. Waxay kaloo tiri in qof kale lagu daro uu guurka burburin karo, aniguna waxaan ka walwalsanahay in haddii aan gabadh kale la kulanno, xiriirkeennu isbeddeli karo. Waxaan ka baqayaa haddii ay dhab ahaan tahay lab-lamaan, haddii rabitaankeeda aan la daboolin, inay iyadu raadsan karto iyada oo aan aniga la joogin. Sharcigaygu waa haddii ay gabadh la joogto, aniguna waa inaan joogaa. Rag badan ayaa jeclaan lahaa xaaladayda, ma ka dhigaya arrintan mid ka adag sidii ay ahayd? Talo, dhegayso xaaskaada. In qof kale lagu daro xiriirka waa arrin halis leh oo u baahan in si taxadar leh loo wada hadlo. Uma baahnid inaad ilaaliso danaha lab-lamaanimada xaaskaaga. Haddii ay rabto inay galmo la yeelato haweeney kale, iyadu go'aankaas ayay qaadan doontaa. Lab-lamaanidu macnaheedu maaha in qofku rabo saddex-geesood. Waxaa laga yaabaa in xaaskaagu aanu rabin inaad ka qayb qaadato galmada haweeney kale. Waxaad hore uga fahmi kartaa markii ay tiri inaadan xanaaqin marka ay saaxiibadeed la safarto. Waxaa kaloo suuragal ah inay hadda ka baxday rabitaankaas. Wadahadal furan oo aan eedayn iyo xukun lahayn ayaa muhiim ah si aad u fahamto xaqiiqada dareenkeeda galmo. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan. Ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Aniga iyo saaxiibkay waxaan jecelnahay galmo badan, laakiin 11 jeer maalintii ma badan yahay? Aniga iyo saaxiibkay labadeennaba waxaan leenahay rabitaan galmo oo aad u sarreeya, waa xiriirkeena kaliya ee sidan oo kale isu dheelitiran. Waxaan dhowaan galnay 10 jeer 24 saac gudahood, taasoo ka badan rikoodhkii hore ee 8 jeer. Markii 11 waxay noqotay mid xanuun badan oo aan sii wadi karin. Waxaan raadiyey talooyin ku saabsan sida xanuunka loo yareeyo ama inta wakhti ee u baahanahay inaan ka soo kabsado. Ma suurtagal baa inaan jidhkayga ka badinayo? Talo, galmadu waa inay noqotaa mid raaxo leh. Haddii ay xanuun tahay, jooji. Haddii aadan ahayn qofka jecel xanuunka, galmadu ma aha tartan ama ciyaar awood. Ka taxadar jidhkaada oo diiradda saar tayada galmada halkii aad ka fiirin lahayd tirada. Raaxada iyo farxadda ayaa muhiim ah. Haddii aad rabto guul gaar ah, ujeeddadaada ha noqoto kordhinta raaxada, taasoo u baahan wakhti dheer oo lagu gaaro raaxo. Isku day hal kulan galmo oo cajiib ah 24 saac gudahood. Had iyo jeer jooji haddii midkiin xanuunsado, waxaadna arki doontaa sababta raaxada degdega ah loo qiimeeyo si khaldan. Saaxiibtaydu waxay iskeed u taajirtaa kadib galmada. Maxay tahay sababtu? Waxaan xiriir ku jiray 9 bilood. Waxaan u malaynayay in galmadu noo wanaagsan tahay labadeennaba, laakiin markii aan dhammayno, waxay i tiri inaan qubayso. Waxaan ogaaday inay iskeed u taajirto marar badan. Waxaan u malaynayaa inay tahay mid aan daalin karin. Maxaan sameeyaa? Talo, waxba ha samayn. Qubayso oo ha sii wado. Dhaqankan waa mid caadi ah. Ha ka welwelin inay si qarsoodi ah kuu necab tahay. Haween badan waxay rabaan raaxo labaad, gaar ahaan haddii ay si weyn u kiciyeen inta lagu jiro galmada. Waxaa laga yaabaa inay aaminsan tahay inay adiga dib ku tahay raaxada dheeraadka ah, ama inay ka baqayso inaad u malayso inay dalbanayso wax badan. Dad badan, lab iyo dhedig, waxay dareemaan in raaxada ay ka helaan istaajinta ay ka duwan tahay tan galmada lamaanaha. Waxay u baahan tahay raaxo dheeraad ah oo ay iskeed u hesho, taas oo aan ka dhignayn inay ku qanacsan tahay galmada idinka dhexaysa. Saaxiibkay si degdeg ah ayuu u kiriyaa, wuxuuna dhammeeyaa anigoon taaban. Tan iyo markii aan la joogay saaxiibkay 2 sano, wuxuu si dhaqso ah u kiriyaa marka aan qolka jiifka galno. Wuxuu dhammeeyaa si degdeg ah, mararka qaarna xitaa ma jiro taabasho. Kadibna wuxuu ku adkaadaa inuu mar kale kiriyaa habeenkaas. Wuxuu si joogto ah u hurdo la yahay, walwal badan ayuu qabaa shaqada, wuxuuna jecel yahay khamriga, inkastoo aanu cabbin marka aan wada joogno. Waxaan hubaa inuu i jecel yahay, galmaduna ma huma, laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu si joogto ah u kiri karo. Talo, waxaad aqbashay wax badan oo aan ku habboonayn. Ma u malaynaysaa inaadan xaq u lahayn inaad codsato isbeddel? Hurdolaanta joogtada ah,
isticmaalka khamriga, dhammaadka degdega ah oo laga yaabo inaanad raaxo badan helin. Waxay u baahan tahay in aad isaga wargeliso waxa aad rabto oo si tartiib ah uga caawiso inuu fahmo inuu ku jiro habnololeed caafimaad darro ah oo la daweyn karo. Waxaa jira daawooyin iyo xalal arrimahan oo dhan. 5. Anigu ma gaari karo raaxo, xitaa saaxiibkay wuxuu sameeyo wax kasta. Waxaan ahay haweeney 24 jir ah oo aan marna gaari karin raaxo. Mararka qaar waan u dhowahay. Taabashada clitoriska waxay iga caawisaa, laakiin weli ma gaadho. Saaxiibkay wuxuu dareemayaa inuusan ku filnayn inuu iga dhigo inaan raaxo gaaro. Waxaan dareemayaa inaan jabay. Maxaan sameeyaa? Talo, ha isku dayin inaad raaxada ka gaarto galmada gudaha kaliya. Baro saaxiibka sida aad jeceshahay in lagu taabto, gaar ahaan clitoriska gacanta ama afka. Ku dhiirigeli dadaalkiisa, dulqaado khaladaadkiisa hore oo ammaano marka uu saxdo. Waa mas'uuliyadaada inaad la wadaagto baahiyahaaga saxda ah, halkii aad isku dayi lahayd inaad raacdo fikradda qaldan ee ah in raaxada galmada gudaha ay tahay tan ugu fiican. Waxaa kaloo jira siyaabo aad isaga kiciso inta lagu jiro galmada adigoo isticmaalaya taabasho dheeraad ah ama alaab galmo. 6. Xaaskaygu qurux badan tahay laakiin ma dadaasho nolosheena galmo, waxaan lumiyey xiisaa. Aniga iyo xaaskaygu waxaan isguursanay dhowr sano. 6dii bilood ee la soo dhaafay, xiisahayga galmo ayaa hoos u dhacay ilaa heer aanan mar dambe u soo jiidan. Inkastoo ay qurux badan tahay oo dadku mar walba ii sheegaan, galmadu bilowgii xiriirkeena waxay ahayd mid wanaagsan oo firfircoon. Waxaan u sheegay inay ka maqan tahay xamaasad, iyada oo aan dadaal badan gelin. Mararka qaar waxay tidhaahdaa waa inaan galmo samaynaa caawa, taasoo iga dhigta mid niyad jab leh. Wadahadallo badan kadib, waxay tiri way fahantay, waxay u baahan tahay inay ka shaqayso, laakiin markii dambe si fudud ayay i weydiisatay galmo iyada oo aan dadaal gelin, marka waan diiday. 2 bilood kadib, waxay dib ugu noqotay sidii hore oo iska ilaalisa galmada. Waa qof wanaagsan oo daryeel badan, laakiin samirkaygu wuu dhammaaday, taasoo niyad jab ku ah guurkeena dadayar. Maxaan sameeyaa? Talo, marka qof la xukumo marar badan, wuxuu lumin karaa kalsoonida oo wuu ka fogaadaa. Abaalmarinta iyo dhiirigelinta waa habka ugu wanaagsan ee wax lagu baro. Xitaa guulaha yaryar ku ammaano oo ha eedayn mar dambe. Waxaa laga yaabaa inay jahawareer dareemayso, gaar ahaan haddii aadan si cad u sheegin waxa aad jeceshahay. Ha ku eedayn, weligaa ma bilaabin galmo. Laakiin tusaale ahaan ka sheekee muuqaal aad aragtay oo haweeney si lama filaan ah u soo martay qolka iyadoo xidhata dhar gaar ah, kadibna ninku casuuma. Tani waxay dhiirigelin kartaa xiisaa.